حجاب كدبول شركاغا astro xubnahaaga qaawan hatusi raga xaada jiifta xirbaha iska xiirin deyso ha xiran dharka reer galbeedka xisoodka ha tuurin fiican xamar ruuxna inaabti u boqo ilkii xawaasha ibleys xeradii ha aadin xumaan iyo cayha doonan dadaaxan xantiinta jooji ku xasil diinta iyo quraanka shirkaaga xareed ku joogta xaada dhabankaaga teedsan xubnaha ee bahay ku siiyay xiskiisu nimuu fayooyay xaqiiqdii uu jeclaanay xayisiintu ka deyso adoo heli kara xalaasha xafada guurkii arooska adoo xaragoon karaya maxad ka fiid ku joojay rag baa jira xaasidiin ah qalbiga ka xadi ku iibsan xariifiin baa ku raadsha xirfado gaar ahna yaqaana xayraan baa kugu wareegsan adiga ku sita xajiimo waxaad xulataanin diin leh xamdiyo tukado salaada xakiimkiisana yaqaana qudhiisa ninkii xisaabsha ninkii xoolaha agoonta xaqooda ilaalinaya nimaan aadmiga xumaynin nimaan ximin ruux tisqaaday nimaan xaasidin walaalka xaraanta nimaan ku dhiiran la jaarnika xeer yaqaana xamaasad intay ku qaado qabiilaysi iyo xigtaysi haraaci nimaan xadlaynba maalkiiyo xoolaha adduunku xaqiiqdii way guraane ninkii qaadaya xilkaaga ninkii xolo kuu qalmaya adoon ku xabeebin gaalka ku xidhmin filimada khiyaalka adoon xadhigooda haysan dadaan ku xisay laftoodu axdiista iyo xifti adkaarta ninkaaga xurmee wanaaji xaq dhowr oo sii kalsooni xaqiisa garoo ilaasho xanaanee oo hadayrin oo xiftisirihiisa kaydi u noqo xidig oo ka faano ayuun kaa caban xigaalku ayaan lagu dhihin xisbeela garaadaran xumo qorsheeya runacab garashada xabaala xintama keligeed abraara iskeed iska xiiqadaala fudfudud xuufiyo dabaysha ayaan lagu bixin xishoodla حيابا كبير أرداغا حمبار أبدكي دلانكا ناسكنا حلقودا نوشي انتاد حشويل كميدو قريقا حاديد سفايسو كشد حسلوني أونسي اندها كولو حنيسو لركنا حيروكو عرفايا مركو حاجشو يمادو حقلو حالدها تعايلكا حسوستها آدم مدفوك حتى قبد حيل لقيدا حمرو ميلو حري الوادكو حدا وضا حدق إفايا حنيد إيه هيلو لشيلي حعنوحو حاحيلا انتا سيكو إدشا معصدو معصدو حكاها لسا إلا قبل مركا dhalinyarada ahayd xulo nin wanaagsan oo guurkeedii markay hooyo noqotay markay gurigeeda dhaqatay dhamaanteed gabar walba oo naga mid ah waxaan rajeenay abwan inay maasadaasi qaadan doonto haddaba maasadaasi qisooyin badan bay leedahay laakiin mid kamid ah hadii aan soo koobo wiilba waqti waxa iga sheekeeyay in xaafad ay joogtay gabadh orad oo ahayd dabeetana gabadhaasi waxay ahayd gabadh asturan oo dhowrsoon oo diinta ku wanaagsan isla madaxaataana madrasadaha waxa weeye quraanka barata haddaba gabadhii waxa la dhaho happy new year-ka inagu badana markaynu islaam nahay ma wacna inaynu u xusno si waxa weeye sida ay gaaladu u xusto gabadhaas wiil bay isbarteen dabeetana wiilkii jacayl iyo wax noocaas ah dhaxmaray gabadhaasi waxa lagu yaqaan inay xijaabato oo ay dhar waxa weeye ay xirato ka waaweyn iyada oo aan jirkeedu muujinayn haddaba gabadhii habeenkaasay wiilkii balameed waxay gashay qolkeedii dabeetana waxay isku soo hagaajisay alaabtan ay dumarku marsadaan ee dhalaaliska ama make up loo yaqaano waxay xidhatay dhar ku dhigsan dabeetana si aan waalidkeedu u dareemin waxay kor ka xiranaysaa xijaab weyn iyo indhashareer bay xiranaysaa dabeetana way baxaysaa iyadoo iska dhigaysa gabadh tagaysa meel waxa weeye wanaagsan waxa jirta gabadh walba guri joogta laba mid bay heshiis la tahay ama walaasheeda ka yar oo ay isla wadaag yihiin ama gabadha guriga uga shaqeysa ay isla wadaag yihiin oo hadhow haday daahdana guriga ka furaysa hadii ay alaab kala soo dhiibsan dabeetiyada way balamisay dibadda isku raaceen dibadda markay wara baxeen gaadhiga halkan taagay iyo xijaabkiis ka saartay xijaabkii uu soo dhiibtay waxa uu soo hayay dharkii dhiska xirnay xaafadii waxa kaga soo baxday xijaabkii way socotay dabeetana markay tagtay tiyarad baa la soo galaysa xijaabkii iyaduna sidii gaadhiga ku dhacaysa waxay isku raacayaan wiilkii hotel kamid ah hoteelada magaalada ku qaarsan dabeetana waxay sameynayaan iska casheynayaan dabeetana waxa weeye markuu dhamaado ugu dambeyntii gabadhii waxay soo baraarugaysaa iyadoo dhex jiifta guri qol ay ka urayo drogo gabadhii waxa dhacaysa in uu caloosheedii ilmo galo dabeetana markii la weydiiyay waalidkeedii iyo qaraabadeedii weydiiyay waxay sheegaysaa wiilkiina uu ku gacansaynaya uu diidayaa waxa la sheegayaa in gabadhii ay waxa weeye nolosha ka samayso noloshana ka dhacdo dabeetana way tahriibtaa marka ay tahriibto waxa la sheegaa inay ku sii rafaado saxaarahan Liibiya ugu dambeyntiina waxay gabadhii ku dhimatay xeebaha Talyaaniga qisada markuu iga sheekeeyay waxaan markaa anigu
maskaxdayda ku soo dhacay waxa la yiraahdaa roog markuu daayo dalada aynu qaadanaa waxay naga calinaysaa kumaan dhibcood oo jirkeenu qoyn lahaa gabadhana xijaabku wuxuu yahay dalada oo